waxaa maanta la shubay daamirkii jidka isku xidhaya Hargeysa iyo Balligubadle. Muuqaalada daawanaysaan waxay tilmaamayaan sidii loo gudagalay 3 kiiloomitir oo horeeyay. jidka Balligubadle Hargeysa wuxuu dherer ahaan dhan yahay 64 kiiloomitir balse intay shaqadu ka socotaa imika waxay dhantay 10 kiiloomitir. jidkan wuxuu kaga duwan yahay jidad badan oo dalka laga hirgeliyay dhinaca tayada, ballaca, dhererka iyo iska xijinta culayska. arrintaasuna wax ka weydiiyay injineeradii ka howlgeliyay jidka ayaa waxay sheegeen in kala duwanaanshaha jidkan iyo jidadka magaalooyinka kale uu faraq dheer u dhaxeeyo. injineer Cabdiraxmaan waxaad nooga warantaa farsamo ahaan wadadu waynagan arkayno maanta 2 kiiloomitir ugu horeeyay baynu bilownay bal hada cabirkeeda ballaceeda bal hawlaha bal nooga yara sheekee. بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaan guud u dirayaa gudida wadada Balligubadle iyo contractor-ka oo aad iyo aad runtii ahaantii dadaal badan muujiyay. haddaan ka warramo cabirka wadada ama technical information ka bixi wadada waxay ka kooban tahay marka cabirka dhinaca laga yiraahdo width laga hadlayo 9 mitir bay ka kooban tahay. imika waxa la shubayaa oo qoro waxa weeyaan waa 7 mitir labada cidhif waxa la each baa ilaalada waxay noqon doonaa meelihii baabuurta ay ka digayeen wala shubu doonaa iyaga laftirkooga laakiin waa meelaha ay baabuurta ka digayeen. cabir ahaan space iyo set base wax la jira oo la soo garaacay set base-ka iyo base-kaasi waxay ka koobnaayeen marka la isku daro 30 cm ay ka koobnaayeen. imikana waxa la shubayaa waxa la yiraahdo 7 cm baa la shubayaa. cabir ahaantii dhinaca marka la eego 9 mitir weeyaan waxaan la shubi doonaa 7 mitir baa la shubi doonaa. maanta daamirkii baa la dhigay 2 kiiloomitir baa durba ay hawshu socotaa sidoo aragtaa maanta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإلهي مهدي كل أنا سنة بالي من حوش إنه كسر بدي تري مدير كذينا ما أنت معركنا وإلهي مهدي هدي ما أنت كل بدي كيلومتر هورية لا بالعربي وعذاك يصدق ولا تيجي وتضل الله نيجيو سيدا وكسر كيه إنجنير كان أردي أدو كسر عبد الرحمن سي أي وتضل واحد كل نقطة أنت وتو international هو حدكي نقول حريصة si ay u buuxiso qualification-kii looga baahnaa wadada international-ka ayaanu horta sidaan u sameynaa. runtii gudi ahaan waxaanu ku talagalnay in aanu sameyno xitaa kiiloomitirkaanu sameyno oo noqdo mid mustaqbalka wax taraya oo aan ugu yaraan 5 sannadood 10 sannadood meelaha aan waxba noqonoon rehabilitation u baahan 10 sannadood. mid kale imika Cabdiraxmaan waxaan ka wada sheekaysanayna xitaa dhirtaan ka duunay si aanu deegaanka u ilaalino oo aanay dhirta native-ka ah ee galoolka iyo ka baxday hareeraha aanay waxba inooga yeelin ayaanu u ilaalinay inaan u raacno qaab kii hore ay wadada u dhisnayd oo haddaad geed dumiso dee wax weyn baad environment ka geysatay xitaa taasaanu ilaalinay. guddiga dhismaha jidka Balligubadle iyo Hargeysa ayaa iyaguna guddi dhexda u xidhay sidii ay uga rumeyn lahaayeen himiladan waqtiga dheer la sugayay ee bilowga jidka Hargeysa iyo Balligubadle. waxaa ii farxada oon aad ugu faraxsanahay maanta anigoo ka mid ah xubnaha guddida wadada Hargeysa Hawd inay bilaabantay oo aad arkaysaan in daamirkii iyo compensation-kii iyo hawshii wadadu ay socoto. waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. muddo dheer baanu hawsha runtii aanu soo babacdigaynay oo aanu ku jiray habeen iyo maalinba sidii aanu u bilaabi lahayn ama ay hawshaasi u furi lahayd. keliyata oo aan jecelahay inaan maanta halkan uga faa'iideysto waxaan ka codsanayaa bulshooyinka reer Somaliland waxyaabaha ugu wanaagsan inuu qofku wax ku bixiyo waxa kamid ah wadooyinka. waxaan maanta oran lahaa in qof waliba wadada iska xil saaro sidii ugu darsan lahaa maraq iyo maalba insha Allah ta'ala. ilaahay baa mahad maanta waa noo bilaabantay wadadii sida aad arkaysaan quruxda badan ayaan u socotaa. wadaduna ma aha mid ay cid leedahay ama reer leeyahay ama khaas loo leeyahay. wadadu waa wada international ah. gaalka mari kara, islaamka mari kara, cid kasta mari karta. walaalaheena dhinacyada iyo walaalaha u dhashay gobolka waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka soo qayb qaataan dhismaha wadada oo ah wado aad u dheer 62 kiiloomitir ah oo aan si hawl yar oo sahal looga bixi karin haddaan gacmaha la isqabsan
walaalaha u dhashay gobolka qurbahana waxaan waliba leenahay in badan baan taagan wadadii meelay waa taa maanta aragtaan. bismillaahir rahmaanir rahiim. halkan waxaan ka oranayaa anigoo ah xubin ka tirsan qurbajoogga reer Somaliland ee ku nool dalka Ingiriiska. waxaan u sheegayaa wadadii inta badan aynu buunbuuninay aynu u heelanayn inay maanta bilaabatay. markaa waxaan idiin sheegayaa cidna muuqadna halkii hawsha aynu ka wadnay waa inaynu ka wadnaa niman culimo oo firfircoon iyagu isxilqaamay baa hawshii wada inaynu la soo xisaabtanno inaynu la soo xidhanno aynu wixii aynu ka qaban karna ka soo qabanno. dhaqaalaha loo hayo dhammaystirka jidkani ma aha mid ku filan. qiyaas ahaan halka kiiloomitir wuxuu ku kacaa $130,000. muwaadin ka qayb qaada jidka isku xidhaya Hargeysa iyo Balgubadle oo ka mid ah horumarka dalkaaga. ku darso oo ku soo naso hoyga halganka iyo dib u xoreynta Jamhuuriyadda Soomaaliland. daawadayaal barnaamijkan ugu talagalay dhismaha jidka Balgubadle iyo Hargeysa intaasuu ku dhan yahay. waa anigoo ah Cali Jibriil magaalada Hargeysa. hawlaha qaranka u baahan hantidu siday ku hagaagayaan horseed ka haw